xiriirka aan la leenahay dalalka deriska ah iyo kuwa caalamka waa mid ku dhisan xushmo iyo ixtiraam iyo wada shaqayn si aan u xaqiijino aan u xoojino danaha aan wadaagno siyaasadda arrimaha dibadda waa albaabka ay naga soo galayaan dalalka caalamka sidaas awgeed waxaan qaadanay siyaasad ku dhisan dhexdhexaadnimo iyo furfurnaan si aan u adkayno xiriirka aan la leenahay caalamka taasna waxay ka dhalanaysaa in loo macaamilo si siman dowladda Soomaaliya way ka go'an tahay ilaalinta iyo dhowrista xornimada iyo midnimada dalka Soomaaliya arrimaha masiiriga ah ee ku aadan ilaalada midnimada iyo wadajirka qaranka ee ay hadda ka shaqeynayaan dowladda qaybaheeda kala duwan waa kuwa loo soo gudbin doono golayaasha baarlamaanka si ay uga qaataan tallaabada ku habboon iyagoo u eegaya dastuurka dalka Soomaaliya waxay diyaar u tahay maalgashi Soomaaliya diyaar waxay u tahay maalgashi iyo ganacsi ay la wadaagto wadamada caalamka si kastaba ha ahaatee cid kasta oo doonaysa inay maalgashato Soomaaliya waa inay ogolaansho rasmi ah ay ka hesho hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka ah waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qarannimada iyo midnimada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed duruuf kasta ay ku jiraan dib walba ay ku jiraan waa dad adag dadka Soomaaliyeed waa dad damiir leh dad raqiisa ma aha dad qiimo ku fadhiya ma aha dadka Soomaaliyeed waa dad qiimeeya dalkooda qiimeeya oo wadaniyiina dadka Soomaaliyeed waxa weeye waa dad u taagan inay difaacaan dalkooda oo aysan ogolaanin marnaba aysan ogolaanin hal saaka dhulkooda ka mid ah in si xun ku baxo